Assalaamu calaykum waa tartan diini ah oo ku saabsan saxaabadii Ilaahay raalli ha ka noqdo dhammaantood. Haddaad kanaalka ku cusub tahay fadlan subscribe-ta naga ilaawin. Videoga hadduu ku cajabiyad ka heshayna sii share gara insha Allah. Su-aasha koowaad, tobankii saxaabi ee Nebigu calayhi salaatu wasalaam ugu bishaareeyay jannada kuma waa saxaabigii ugu dambe geeriyooday? 1. Cali bin Abi Taalib. 2. Sacad ibn Abi Waqaas. 3. Abu Cubayda bin Jarraax. Jawaabtuna waa ta labaad oo ah Sacad ibn Abi Waqaas. Su-aasha labaad, kuma waa saxaabigii uu Nebigu calayhi salaatu wasalaam yidhi qofka jeclaada ama jecel inuu arko shahiid soconaya dhulka ha eego? Jawaabta waa 1. Cabdiraxmaan bin Cawf. 2. Zubayr ibnu Cawaam. 3. Talxa bin Cubaydullah. Jawaabta saxda ahna waa lambarka 3, Talxa bin Cubaydullah. Su-aasha saddexaad, saxaabigii la odhan jiray ama lagu naanaysi jiray amiinu haadihi lumma, amiinka ummaddan kumuu ahaa? 1. Cusmaan bin Cafaan. 2. Sacad bin Abi Waqaas. 3. Abu Cubayda bin Jarraax. Jawaabta saxda waa 3. Abu Cubayda bin Jarraax. Su-aasha afraad, kumuu ahaa saxaabigii madaxa ka dhunkaday boqorkii Roomaanka si maxaabiistii Muslimka ahayd uu u sii daayo? 1. Cabdulaahi bin Xudaafa. 2. Usaama bin Zayd. 3. Cabdulaahi bin Zayd. Jawaabta saxda ahna 1 ayay noqonaysaa Cabdulaahi bin Xudaafa. Su-aasha shanaad, kumuu ahaa saxaabigii dilay Abaajahal? 1. Cabdulaahi bin Salaam. 2. Cabdulaahi bin Mascuud. 3. Cabdulaahi bin Cumar. Jawaabta saxda ahna lambar 2 ayay noqonaysaa Cabdulaahi bin Mascuud. Su-aasha lixaad, kumuu ahaa qofkii ugu horreeyay ee u dardaarma xoolihiisa 3/4 in la bixiyo oo sadaq ahaan loo bixiyo? 1. Albaraa'a bin Maalik. 2. Albaraa'a bin Macruur. 3. Bashar bin Albaraa'a. Jawaabta saxda ahna waa lambar 2, Albaraa'a bin Macruur. Su-aasha toddobaad, kumuu ahaa saxaabigii lagu magacaabi jiray khatiibkii Quraysh? 1. Sakhar bin Xarbi. 2. Camr bin Alcaas. 3. Suhayl ibn Camr.
jawaabta saxdaana waa lambar 3 Suhayl ibnu Camr. Su'aasha 8aad kuma ahaa saxaabigii la odhan jiray khatiibkii Ansaar? 1 Ascad binu Suraara, 2 Sacad binu Mucaad, 3 Thaabit binu Qays. Jawaabta saxdaana waa lambar 3 Thaabit binu Qays. Su'aasha 9aad kuma ahaa saxaabigii u wakiishay Cali binu Abi Taalib inuu ummadda muslimiinta ah uu xukumo ama qaadiga ka dhigay? 1 Sahiil binu Xunayf, 2 Cabdullaahi binu Qays, 3 Cammaar binu Yaasir. Jawaabta saxdaana waa lambar 2 Cabdullaahi binu Qays. Su'aasha 10aad waa kuma saxaabigii uu qaadiga ka dhigtay Mucaawiya ibnu Abi Sufyaan? 1 Camr ibnu Caas, 2 Cammaar binu Yaasir, 3 Abu Muusa al-Ashcari. Jawaabta saxdaana waa lambar 1 Camr ibnu Caas. Su'aasha 11aad sanadkee ayuu Khaalid ibnu Waliid soo islaamay? 1 sanadkii 7aad ee Hijriga, 2 sanadkii 8aad ee Hijriga, 3 sanadkii 9aad ee Hijriga. Jawaabta saxdaana lambar 2 ayay noqonaysaa sanadkii 8aad ee Hijriga. Su'aasha 12aad kuma ahaa saxaabigii lagu naanaysi jiray daahiga Carbeed? 1 Camr bnu Caas, 2 Cumar binu Khadaab, 3 Abu Cubayda binu Jaraax. Jawaabta saxdaana lambar 1 bay noqonaysaa Camr bnu Caas. Su'aasha 13aad waa kuma saxaabigii hogaaminayay muslimiinta dagaalkii Qaadisiya? 1 Sacad ibnu Abi Waqaas, 2 Khaalid binu Waliid, 3 Abu Cubayda binu Jaraax. Jawaabta saxdaana 1 ayay noqonaysaa Sacad ibnu Abi Waqaas. Su'aasha 14aad kuma ahaa saxaabigii dilay Musaylama al-Kaddaab? 1 Sakhar ibnu Xarbi, 2 Alqacqaac binu Camr, 3 Waxshi binu Xarb.
jawaabta saxdaana lambar 3 ayay noqonaysaa Waxshi ibnulxarbi. su-aasha 15aad waxaad garataa dagaalkii lagu dilay Subayr binu Cawaam. 1 dagaalkii Safiin. 2 dagaalkii Aljamal. 3 dagaalkii Xidiin. jawaabta saxdaana lambar 2 ayay noqonaysaa dagaalkii Aljamal. waad ku mahadsantahay daawashada fideogan. intii jawaaboodii aad saxday commenti nagula soo wadaag. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.